الرحمن الرحيم دمان وآذان السلام يا dhalinyarada halkan kaga soo qayb gashay soo dhaweynta dhalinyarada kale ee walaalahana reer Cadaado waxaan leeyahay dhalinyarada ka timid Cadaado soo dhawaada walaalayaal magaaladu waa magaaladiini waxa waaye gurigiini aad timaadeen caasimadii dowladda galmudug Soomaaliya aad timaadeen waxaan ku soo dhaweynaynaa sacab furan horena waxa waaye dad isku gudbo markaas isla joogaan oo dad kala xiran bayna ahayn iyo soo dhawow gudoomiyaha caruusta iyo tiimka uu hogaaminayo waxaan ku soo dhaweynaynaa sacab furan iyo walaalnimo iyo sidii aan wax wada lahayn oo sharaw wada dhisnay mudane haddana wax soo sharafta badan soo dhaweynta gudoomiyaha dhalinyarada kala la socotay waxaan soo dhaweynaa dhalinyarada nabadda magaalada Cadaad daan dhalinyarada Soomaaliya waxaan ku qaaday waxaan rabnaa soo dhaweynaa gudoomiyaha dhalinyarada galmudug dana caruusi oo maanta ka yimid waxaana noo gudoomiye ku soo dhawaaw halkan waa gurigaagii waa deegaanadii dadka gudoomiyaha ku matalaysa ay joogaan dhalinyarada inay kula shaqeeyaan darbaaga ee mar kasta jeclaad inaad markasta goolka saragtaan iyo xaaladaha dhalinyarada horumarkeeda iyo wanaageeda ka shaqeysaan rabay waxaana aad iyo aad ugu soo dhaweynay maanta soo dhaweyn gooni ma magaalada mar kasta waa imaanaysaan mar kasta isku imaanayna laakiin dara maanta socodkaaga aad ku soo timid caasimadda gobolka waxaan rabnaa inaan kaaga qayb qaadano oo ugu nimid hore inaan ku soo dhaweyno الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم dhalinyarada guud reer galmudug ama reer Soomaaliya oo Cadaado ama Gaalkacyo iyo dhalinyarada nooga timid maanta magaalada Cadaado waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Soomaaliya ee caasimadda galmudug dhalinyarada waa dhalinyarada reer galmudug maanta iyagoo dhan ay mid noqotay dhalinyaradeeduna inay mid noqoto waxaan leenahay caruusta Soomaaliya waa magaaladaadii ama shalay ha Cadaado ku shaqeey ama maanta Soomaaliya ku shaqeey mar walba dhalinyarada waxaan u jecelnahay shalay haddii ay yeeli weyn ahayd alhayskaada maanta inaan dhahdo waa yeelaynaa dhasareen ku soo alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam aadan ugu faraxsannahay inaad ugu soo dhaweysaan duleedka Soomaaliyeed runtii dhalinyarada galmudug guud ahaan iyo dhalinyarada reer Soomaaliyeed qaabkii aad noo soo dhaweyseen oo sharafta lahaa ayaan kaga mahad celinaynaa Soomaaliyeed caadadan ka soo tagnay waxaana u nimid inaan dhalinyarada xog wareysano dhalinyarada galmudug wax dhibaato ah hadda dhex yaala ma jiraan waa isku mid magaalooyinka iyo iyaga dhan shaqo isku mid ah ayaan dhalinyarada horumariyaan annaguna waxaan u nimid inaan ka qayb qaadano horumarinta dhalinyarada iyo in isdhexgal la sameeyo mana jirto runtii wax horena uga dhexeeyey haddana gooni uga dhexeeya ma jirta shaqada dhalinyarada waa isku mid aniga waxaan ugu sarreeyaa tiimka hogaamiye gayaan oo shaqada horumarinta dhalinyarada ugu sarreeyaa qaybaha Soomaaliya jooga ama Gaalkacyo jooga ama maartay Cabudaq jooga isku shaqo isku mid aan haynaa tala naga dhaxaysa horena waa isugu imaan jirnay haddana waxaan soo gaarnay caasimadda waxaan u nimid inaan maartay wada tashi yeelano safaro dhawaan aan u bixi doono dhawaan darteed waxaan rabaa inaan la tashi badan dhalinyarada ugu imid waan isxog wareysan doonaa wixii dambe maartay si gaar ah soo sheegi doonaa soo dhawaada waan kaga mahad celinayaa soo dhaweynta aad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله